gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Laascaanood ahna duqa degmada Laascaanood Cismaan Saleebaan Jaamac ayaa maanta xariga ka jaray wado 4 kiiloomitir ah taasoo dhawaan hirgelisay dawladda hoose degmada Laascaanood gudaha magaalada Laascaanood munaasabada xariga jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood odayaal iyo waxgarad iyo waliba haween marti sharaf kala duwan waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood cuqaash iyo odayaashii waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadii iyo waliba haweenkii oo dhamaantood u mahad celiyay dawladda hoose degmada Laascaanood iyo waliba golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo waliba xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyaduna gacan ka siisay dawladda hoose sidii ay u hirgelin lahayd wadadan dhamaanteed aad baan ugu faraxsanahay haddaan golaha deegaanka horumarka aanu markasta ugu taaganahay degmadayada waxaa mar walba u helanaa dardar gelinaya shaqadan xogayaha fulinta dawladda oo Cabdi Khayr Dirir iyo duqa degmada haddii aan golaha deegaanka oo duqoodu horkacayo aysan ku dhiiran oo aysan u dhafaradeegin fanaynta jidka abeeska ay dabadaas mariso saaka oo bisha ay tahay 26 bishii 11 2015 waxay inoo tahay farxad oo aynu xariga kaga jarayno wadada dheer ee isku xidha laamiga iyo dhakhtarka waxaana maanta aynu gaarnay horumarkii guusha bulshadeena waana taariikh ay xusi doonto ilaa iyo maalintii la dhisay Laascaanood inaanay hadda ka hor yeelan wada laamiga oo ka dhex gudubta oo ay ka faa'iideysato bulshadu iyadoo aysan wadada kaliya u safarin baa kuwa fara badan ka furay magaalada aad iyo aad u shaqeeya oo lagu liibaanay maayirka mahadaas kale waxa kale oo noo fuliyaan oo mahad u naqaynaa waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar oo isaguna ku amaanay dawladda hoose degmada Laascaanood iyo waliba golaha deegaanka degmada Laascaanood wax qabadka ay muujiyeen muddadii yareed ay jireen golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaa la yiraahdaa hadii qofku hadduu dadaalo hadii la dadaalo yani qofkii dadaala xaajadaas uu gaaraba hadduu sii dadaalana uu wadaafaaba insha Allah waxaan rajaynayaa wadada kaliya uu noqon toban wado kala jira oo waxana gacanta lagu hayaa waxana samaysan yihiin waxana ay soo socdaan waxaan dadweynaha reer Laascaanood ku goorinayaa inay ka qayb qaataan banaynta wadooyinka jidadka bilicda magaalada intaba inay ka qayb qaataan maayirkana aad baan ugu mahadcelinayaa sida hagar la'aanta ay wariye habeenba bilicda magaalada iyo wanaajinta magaalada iyo jidadka magaalada ugu shaqeynayo gabagabadii munaasabadaasina waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood Mudane Cismaan Saleebaan Jaamac oo ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ay soo martay hirgelinta wadadan isagoo bulshada reer Laascaanood nooga mahad celiyay sidii wacneed ay ula shaqeeyeen muddadii koobneed oo ku hawlanaa sidii magaalada Laascaanood u heli lahayd wadooyin laami ah oo kala goosha xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood salaan kadib waxaan halkan mahad ugu celinayaa hay'adda dhay iyo shaqaalaheeda inta badan naftooda horay ee shaqeeyay waxaan kaloo mahad celinayaa golaha deegaanka oo shaqadan inta badan qabtay waxaan kaloo mahad celinayaa shirkadda dhistay Shire mahad kadib dabadaynu maanta taaganahay waa dhaba aad u dheer waa 4 kiiloomitir waxay leedahay bridge weyn waxaan u maleynayaa waa dabadii horeysay Laascaanood aynu xarig ka jabayno aragno tii jayluhayna dhex mariyay nasiibkeena soo dhex mariyay mooyaan insha Allah waxaan rajayn doonaa in dabooyin badan xariga laga jari doono oo Laascaanood gudaheeda ku yaala saad ogtihiin 230 wado ayaa hadda furan oo sugaya in laami la saaro 4 kiiloomitir way socotay oo waa tan inoo dhamaatay kiiloomitir kalena waa dhamaaday labana hadda gacanta lagu hayaa waxaan kaloo idin sheegaynaa in 9 kiiloomitir oo kale aynu dawladda ka rajaynayno inay inoo dhisto sanadka cusub haddii la ka dhigo oo ay inoo ballan qaadeen waxaan isku dayi doonaa Laascaanood inay la mid noqoto magaalooyinka kale ee Soomaaliland ka jira oo ay ka liidaan inay ka quruxdaato mooyaan wadadan ayaa socotay muddo 6 bilood waana markii ugu horeysay wadan noocan oo kale laga hirgeliyay magaalada Laascaanood taasuna ay tahay ballanqaadkii uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo inuu ka hirgelin doono magaalada Laascaanood mashaariic kala duwan oo wax ku ool ah waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood.